waxaa magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika soo gaaray xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya Nosej Cumar Faaruq kadib markii shir heer caalami ah uu kaga qayb galay dalka Namibia. Cumar Faaruq xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliya oo ugu horeyn bahda warbaahinta kula hadlay gegada diyaaradaha ee magaalada Johannesburg ayaa waxa uu ka warbixiyay socdaalkiisa ku aadanaa shirka Namibia iyo imaatinkiisa magaalada Johannesburg isagoo ugu dambeyntiina cambaareen dusha kaga tuuray xadgudubyada ciidamada Kenya ay ku hayaan suxufiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya. Horta waxaan ugu qayb galay magaalada Windhoek ee dalka Namibia kulan ay midowga Afrika uu soo abaabulay oo loogu talagalay arrimaha ururada shaqaalaha iyo qaaradda Afrika dhammaan waxa ka soo qayb galay dalalka Afrika ee xubnaha ka ah midowga Afrika ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nosej aad bay arintaas uga qayb gashay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee anaga aan xoogga saarayna waxa ka mid ahaa xorriyadda qowlka iyo xorriyadda dadku ay u leeyihiin in ay yani ururka ay doonaan ay dhistaan ay ururkooda ay ku shaqeeyaan halkan dalkan South Africa waxaan joogi doonaa muddo gaaban oo aan runtii aan rabo inaan is aragno aan la hadlo digayga ururka saxafiyiinta South Africa saaxiibkay Tuwani Gumani oo arrimo dhowr ah inaan ka wada hadalnaa asagana ay tahay iyo dhammaan iyo yani qaaradda Afrika wixii qusay saxaafadda iyo bahda saxafiyiinta adduunka oo dhan ee IFJ-da oo aan ka wada tirsanahay arrimahaas baan halkan u yimid inaan arko dabcan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee halkan jooga magaalada Johannesburg jooga isagoo ugu dambeyntiina cambaareen dusha kaga tuuray xadgudubyada ciidamada Kenya ay ku hayaan suxufiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya. mar walba ay nagu soo wargeliyaan tacdiyada ku socda iyo runtii yani qabashada iyo xariga oo sharci darada xitaa ayagoo sharci in la xirayo runtii ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed aad buu u cambaareynaya wuxuu taageero u muujinayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada ku haysata magaalada Nairobi. saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan waxa ay Nairobi u yimaadeen waxay ahayd badankood in ay ku nabad galaan dalkoodii oo dhibaato ay ka jirto oo lagu dhibaateynayo ay ka soo carareen in haddana dhibaato loogu geysto halkaasito wax la filan kara ma ahayn. waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha amniga iyo dawladda Kenya inay joojiyaan raafka iyo handadaada iyo xariga ay u geysanayaan saxafiyiinta Soomaaliyeed. Cumar Faaruq oo saacado ku sugnaa magaalada Johannesburg ayaa waxa uu kulamo la qaatay bahda saxaafadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika isagoo ka xog wareystay xaaladda ay ku sugan yihiin ugu dambeyntiina u ballan qaaday inuu u raadin doono aqoonsi heer caalami ah si xirfadooda ay u horumariyaan. Manaan markii ugu horeysay xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya Cumar Faaruq oo safar caynkan oo kale ku soo gaaro dalkani Koonfur Afrika. Maxamed Xasan Ibrahim Matka TV-ga caalamiga ee Somali Channel Hortime Airport Johannesburg South Africa.